السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابت أذين إدين سلامي وولاشين وما إسرا ديكور channel سبسكرايب إنه صار إن شاء الله فيديو ياش لايك شير كومنت إنت بهنا إلو بينا دو إلهي إتمو وحن جعل استصحابي إن إذن سو ذاقو فيديو يرى المهسيدة عن وقت وقاليو ما شاء الله أنا أوغا فرحية أنا واحد بدن عن سمينين هذا actually وحوها back to school كا يعني سمي فيديو كان back to school كا سيدا عن أسو دياريي بلاس علمه يعني مادام جروج أي وقت بدن جوجان markii oo fasax oo kaleeto xilli badan guriga ay soo joogeen oo hadan cudurkan dhacaawil meel lagu ciyaariyo waxyaabahaas la aadi jiray laakiin hadda sanadkan wallahi meel oo maanan bixin maadaama jira iyo balaayo wax iska dhaceen gurigeena ayaan isaga tabagalno iska dhex joognay insha Allah yiristeeda way timahan usoo hagaajiyay iyo walaashayda ayadana way yartahay iyada xataa soo timaheeda maadaama la hagaajinayo iska yartahay soo markii timaha ayaan usoo hagaajiyay waa soo habeenaya cidiyahan ka jaraya oo soo yar qurqurxinaya balaas way shaqada guriga xoogaa ila qabanayaan si ay iskaga baashaalaan ayakane timaha saliidaha aan ugu sameeyo gabdhahane video ayaan kasoo sameyn doonaa waana idin soo dhigaya asaga xataa duu ilaahay idmo video qurux badan ayaan kasoo sameyn doonaa saliid badan oo aan isticmaalo marka maanta waxaan dubayay bankookadii cashada waxa la igu qabsaday sidii aniga kula dubaya la dhahno ilaa maxay dhahay maami adiga waxa haystaa jikadaada biyo leedahay waxaas dhalay leedahay cunta ku karisa ani jikadeeda biyo ma qabto cunta ma shidmanayso marka taad ina ku caawiya rabaa la dhahay maanta soo marka soo dhawo waa dhahay waxay ahayd walaashayda iyo walaalkay Ingiriiska asaga wuxuu dhaanay ina xabad ukun idin jabiyo waaye marka ma sha Allah wiilkeen Ingiriisku naga carray asaga wax badan lama sii joogi laakiin gabadhayda waxay ahayd qofka oo aad ugu haystay in cuntada ila karisa maantay soo wax aniga ku karsan karo ama ku qasan karo wax 10 minute ka yar waxay ugu qaadato walaa 30 daqiiqo in la taagnaado laakiin waxaan u sameynayay iyada farxadeeda darteeda inay iyada faraxdo oo qof i caawinayso gurigan iska dhigto ilmaha especially markii oo laga dhigo qof weyn oo qof guriga ka caawinayo kala ka dhigtid waxay ka caawinayaan inay iyagan dad waaweyn oo kala u dhaqmaan ay ko yar marka walaahi waxba hadda kuma falaadayso oo wixii cuntada si caadi ah karnaa u jeedin maahno afar jirna waay ma sha Allah marka ila qasto wax dhan ay ila sameyso waxaan dhahayaa marka TV-ga si daawo maami ayaa soo karinayso laakiin waa la ila qasay waxa la horta eegta ukunta ana ku jabinaayo masti waa ina kula qasamaami isra jikadeeda malahana lagu yirbiyo isra jikadeeda dab ma ka soo baxaaya marka taadan kula joogaya marka anaga wax Ingiriis oo simple ah oo anaga wax naga dhibeenin ayay ilmaha wax badan u arkaan insha Allah ina isaga dul qaadana markii aan waqti haysanan aad ay u wanaagsan tahay waa iyaga wax yar oo simple ayay ku farxayaan soo ma ahan wallahi ilmaha wax yar aad u yar oo simple ah ayay ku farxayaan marka taasna waxay naga caawinay in aan anaga shakhsi anaga laftirkeena oo aan ilmaha dhahno hadda waqti ma hay marka waqti hay waa ogtahay waa ila sameysaa Soomaha ilmihi wuxuu baranaa markii ay hooyo awoodo iyo markii ay awoodin laakiin mar walba hadaa may dhahdid ilmaha ku kala baranayo waqtiga hooyo wax u awoodo iyo waqtigii awoodin marka cabaara ka soo farxinaa meeshaan ila soo walwalaaqay ila soo waxbixinay kadib shaqo yar igu dhiman ayada aan ka qabanaya maadaama iskuulkeeda la furaayo mataqaana la furaayo Isniinta marka sidaas darteed ayaan soo yaraha hagaajinaya laakiin shaqada guriga ila sii qabanaysa fasaxan inta lagu jira dhan ani ayadoo isku qornin bariis hada karinayo waxa waaye bariiska uu soo carfooya inay dhahday meesha igu taagneed ay yacni qnaaq shaqada ila qabanaysa iska dhigto hadana burki iyo wixii ayaan soo qabsadahay igu dardar markay cabaar iyo walaaqdana waan iska diraya aniga si fiican u soo qasi doona haduu Ilaahay idmo marka asxaabay sida u jeedin baaburkaygi oo sidii wax baqay amal laga dhigay ayaa liga tagay laakiin dhibaato ma lahan ana hadda gadaal ka habeenayo oo si fiican u qasaayo laakiin ayada aad u faraxsantaa ma sha Allah fariiq dadka joogdhan u faanoosa waxay tiri aniga maanta bankookada la karna anaan soo sameeyay waa arki doontiin ila socda sheekadaas faanay ku jirtaa ma sha Allah aniga hadda gadaal ka soo habeenayo and then sida caadiga ahayd waa iska soo karsanaya meeshan sida aad u jeedin waxaan la fadhinaa rinjiga cidiyaha ayaan marsanoonaa cidiyaha ayaan horta koodi ka jaraya cidiyaha marka aan ka jaro oo ma sha Allah aan uga soo dhigo waxaan u soo marinayaa rinjiga waxa rinjigan sidaan ii sheegay rinjiga waxa peel off waaye hal mar hadii aan marisid cabaar markuu qalalo waa ka fiiqi kartaa cilaan ayaa u mariyay ma aqaan xoogaa bibiya ayuu noqday aniga ayadoo bibiya ayuu naga noqday gacmeen ayaa kareem lahaa ayaa u maleynayna
maayo badana ilmaha waxa ah dad kareem xoog ugu mariyo xilliga uu qabowga soo ani eedina kareem ana kula amarsana umaleena cilaanka waayo si fiican ma ugu soo bixin markaad sida u jeediinba cidiyahan usoo habeynaya maadaama cilaan loo mariyay isniinta iskuul ee aadu sama ahno gabar weyn ayaa laga dhigaya timihin waa loo hagaajiyay maasha Allah walaa farxadeeda lama soo koobi karo ilmaha waxyaabo yar oo simple iskaga farxayaan anagana waqti badan aan naga qaadanaynin wax badan inaan sameynan nooga baahneen oo iyaga laakiin maasha Allah wax weyn u arkayaan sida u jeediin hada cidihi waa bali tusinooyaa ma fahanteen marka walaa maasha Allah waqtigeeda ayaan siinayay wax walba waqti la galin hadhow ayaad helaysaa insha Allah ilmaha marka maanta aad waqti gelisid adigana bari ayay waqti ku gelinayaan haduu Ilaahay idmo marka waxayna idin sameynaysaa in ilmaha leeshis xiriir aad u dhow marka amar walba ugu dhowdahay amar walba ilmihi isla joogtay waqti isla qaadanaysiin laakiin ilmaha marka cunto la siisid aad dirtid aad jiifisid iskuulkiisa ka keentid si walba u qurxisid macna ma sameynayso hadii xiriir hoose oo idinka dhaxeyn adiga waarid ahaan iyo ilmaha walaa maasha Allah gabadheeda ani ayada xataa waxa leenahay sirta familka wax la dhahayo waxyaabo qaar qof u sheegin hadaa dhahooyo waxay dhahay sirta familka miyaa hay ma la sheegayo marka ilmaha marka mar walba u dhawaatid maasha Allah wax cusub ayaa bare adigana way ka baranayaan waana wax faa'iido idin wada leh labadiinaba ani aad ayaan u jeclahay in yani mar walba ilmaha aad ugu dhawaado oo waqti siiya hadii ay awooda ku dhaha maasha Allah 24 saacadood iyaga ayaan sii lahay laakiin iyaga sida iyagana aan ugu noqdo hooyo wanaagsan waa in aniga wax barto shaqadii gurigan aan sameeyo wixii kalena aan qabto cilaanka waa kaas ayaan idin tusinaya labadeen bisaas naga timihii sida video bilaawis aad ku tusay waan soo hagaajiyay sidaan ayaan iskugu soo xiraa markii aan matqana usoo habeeyo saliidaha aan u mariyo gabadheedu waxay ka caawinaysaa dadka timaha ay matqana qaleylka leh inay timahooda timo saliid ka dhargi ay ka dhigto gabadheedu dadka aad u timaha qalalan waaye wayna timo badan tahay maasha Allah way timo badan tahay wayna timo qalalan tahay laakiin saliideed marka loo mariyo muslina way kaadaan balaas ilmaha oo dadka mi iyo ilmaha markay shaambada ku dhaqaan bis oo diraan shaambada marka ku dhaqo kadib hadana waxaan ku dhaqaa nafaqo oo saliid loos igu dhex darsan tahay ayadana waa idin soo wadaagi doonaa haduu Ilaahay idmo laakiin aad ay ii caawiyaan saliidaha aan u mariyo waxaan isticmaalayaa almost 2 sano iyo bar ayaan isticmaalayaa mar hore ayaan bilaabay inaan isticmaalo waatana ayadana walaashiisana uga soo dhigay subax marka iskuulka aadis ay isku xiranay maadaama iyada ay timo dheer tahay waxaba shaqo waan fahantin oo dadabo marka iyadan waa u jeedin hadii saliideeygi ayaan ayadan u soo qasan u soo mariyay timaha dhan timo degay ayay ka dhigayaan oo maasha Allah dharagsan saliid ka dharagsan ee nafaqo that's why aan u jeclahay asxaabteeda qurux badan waxaan idin rajeynayaa inaad videogeyga horta wax ka faa'iideen wuxuu ahaadaba insha Allah meeshan walaasheeda iyadana waxaan u mariyay cilaan cidiyeeda rinji marsanaysaa waa kana hada rinjigeen inuu noo qalalna isra way sugaysaa marka videogana wax ka faa'iideen ayaan idin rajeynayaa insha Allah inta video dambe isku arkeyno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh